inay qiimo dhimis weyn ku samaysay adeegga Ultrasound dagaalkan aad moodo inuu carcar yeeshay iyo hadalkan weyn ee laga sugayo Trump iyo xaaladda Ukraine laakiin aan ku bilowno falaqaynta marinkan Hormuz la yiraahdo ee Iran ay sheegtay inaysan weli go'aan ka gaarin Iran maxaaladay qiimeynaysaa iyo qatarta ay wajahayso mise go'aankan in meeshan la xiro ay halistiisa laftigiisa wata waxaa jira laba qaraar oo xasaasi ah oo muhiim ah oo baarlamaanka Iran ay ka wada hadlayeen mid wuxuu ahaa in la joojiyo wada shaqayntii la lahaa xogayaha guud ee hay'adda xakamaysa nuclearka ee qaramada midoobay oo la sheegay in uu yahay shakhsi aanan ka shaqayn kareynin wadanka Iran qadiyadda labaad oo ayadana laga doodayay oo baarlamaanka dood weyn ka dhalisay waxay ahayd marinka Hormuz waxa ay Iran ka yeelayso wararka hadda soo baxayo dhan waxay tilmaamayaan inaan weli go'aan rasmi laga gaarin laakiin Iran ay laga yaabo in ay xirto marinkaasi ayaa lagu sheegay inuu yahay mid ay maraan in ka badan 20% saliidda caalamka u ah laf dhabarka marka la fiiriyo wadamada reer galbeedka iyo wadamada caalamka intiisa kale laga reebo Mareykanka oo saliid fara badan iyo gaas fara badan soo saara ayay waxyeello weyn ku keenaysaa dhaqaalahooda waxa ayadana ay saameyn ku yeelanaysaa shirkadaha waaweyn ee ka baayac mushtari saliida sababahaas ayaa il gaar ah lagu hayaa marinka Hormuz Iranna waxa la leeyahay marinkani waxa uu ka mid yahay qaybta ugu badan dhulkeeda waxaana la sheegayaa in weli go'aan rasmi ah la qaadan laakiin wadnaha farta lagu hayo haddii la xiro waxa hubaala in caalamka oo dhan ay ka dhacayso waxay carabtu yaqaanaan rukuud iqtisaadi ama dhaqaalaha in uu hoos u dhac weyn ku yimaado waa tahay aynu eegna markan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa la leeyahay war weyn buu ku dhawaaqi doonaa maxaa la filayaa dabcan maalmihii ugu dambeeyay wuxuu waday hadallo liddi ku ah Vladimir Putin iyo muusa dhihin laakiin ninka fariisan waayay oo har iyo habeen warbaahinta ka sheegaya in hadallo liddi ku ah Ruushka oo xitaa uu ku tilmaamay nin waalan madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waa Trump laakiin ilaa hadda war kama hayno Putin maxaa lagu macnayn karaa waxa laga filayaa caaw inuu ku dhawaaqo Vladimir madaxweyne Trump Michael Clark oo la fagura arrimaha militariga ayaa waxa uu sharaxaad ka bixinayaa waxa ay la tahay inay noqon doonaan inuu ku tilaabsado madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump hadalka uu jeedin doono waqtiyada soo socda khabiirkan ayaa waxa uu sharaxaad ka bixinayaa casharada laga baran karo colaadda wadanka Ukraine iyo maxay noqon kartaa Shiinaha iyo Taiwan arintooda inta marka la yiraahdo ayaa waxa uu leeyahay saddex arimood ayaa suuragal ah sida uu xusayo khabiirkan Clark la yiraahdo saddexdaasi Trump ayaa laga yaabaa in ay ku jiraan hadallada oo caawa jeedin doono waa mar inuu cunaqabatayn soo rogo waa midda labaad in uu geeyo Ukraine haddana barnaamijkeena ku jirta gantaalada difaaca diyaaradaha iyo gantaalada ee Patriot loo yaqaano iyo in uu geeyo qodobka saddexaad hub ay wax ku weerari karto Ukraine ha noqdaan gantaalada fogaanta ridada dheer iyo ama agab kale oo u suuragelinaya inay gudaha Ruushka weerarto Clark ayaa waxa uu sheegayaa haddii uu taasi sameeyo waxa ay noqonaysaa in heshiis cusub oo hub uu la galayo Ukraine taasoo bedeli doonta buu leeyahay mowqifkii uu Trump hore u sheegay markii ololaha doorashooyinka uu ku jiray oo ahaa inuu xabad joojin iyo nabad ka shaqayn doono waxa khabiirka uu ku nuxnuxsanayaa arrimahani waxa ay dardar gelinayaan buu yiri haddii ay Ukraine aqbasho in ay sii wado dagaalka Ukraine ayaa waxa ay faraha ka laabanaysaa ama ka quusatay
xabad joojintii taasoo cid walba ay hore uga quusatay siduu khabiirka hadalku dhigayo wadamada reer galbeedka gaar ahaan saatee ruushka ayaanan doonaynin in wax xabad joojina la gaaro ilaa iyo waa siduu hadalku u dhigayo cadaadis weyn uu ruushka ku yimaado dhinaca kale Clark ayaa waxa uu carabka ku adkaynayaa in heerar kala duwan aynan ogsooneyn waxa maanta gelinka dambe hadalka u jeedin doono madaxweynaha Mareykanka ku jiri doona aniga ilaama ah buu yiri xataa wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka Pentagonka loo yaqaano in ay hubaan waxa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegi doono waxaana muuqata madaxweynaha Mareykanka dhowr goor uu hadallo badan jeediyay hadalladiisaasna qaar badan ayaa wax ka soo noqdeen oo ay ka mid tahay in uu burburinayo la wareegayo dhulka Falastiiniyiinta ka dhigayo meel raaxada loo tago waxaa sidoo kale uu ka hadlay in laga guuro magaalada Tehran oo uu ka dhigayo meel ayadoo dhan burburta waxaa sidoo kale uu ka hadlay barakicintii Falastiiniyiinta oo ayadana meel cidla ku dhamaatay hadalladan uu jeedinayo oo xataa mas'uuliyiintiisa waaweyn ee wasaaradda gaashaandhigga aynan ogsooneyn sida khabiirkana hadalku dhigayo waxaa la sugayaa oo cid walba sugaysa oo ay ka mid yihiin dadka ka midka ah maamulkiisa in ay afkiisa ka maqlaan waxa uu damacsan yahay wax kastoo ay noqoto dowladda Mareykanka codka uu jeediyay madaxweynaha Mareykanka ayaa lagu sheegay inuu noqon doono mid aad u culus waa gartay waaya dhanka dagaalka maxamed aynu ka eegno dagaal culus baa socda meelaha qaarkood ruushka wuxuu sheegayaa dhul inuu qabsaday arrintan hadda keentay in Trump sidaan uu hadlo wuxuu dareemayaa ruushka dhul badan inuu qabsanayo Ukraine gacan ku gabad ay tahay maxaa lagu tilmaami karaa hadda dagaalka socda ruushka wuxuu kaashanayaa dagaal weerarada noocyo kala duwan ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo aad u fara badan gantaalada guuxooda ka dheereeya oo xataa waxyeello u geystay gargaarkii iyo agabkii reer galbeedku ay keeneen iyo maqaasiinno ay ku jireen oo ay ka mid ahaayeen la taliyayaal iyo khabiiro inkastoo reer galbeedka warbaahintiisa ay ka gaabsanayso ilaha qaar ayaa sheegaya meeshaasi inay ka dhacday duqeyn aad u ballaaran dhowrkii maalmood ugu dambeeyay ruushku waxay wadeen duqeyn aan hore loo arag magaalada Odessa magaalada Kiev iyo meelo kale oo muhiim ah ayaa duqeyntaasi saameyn ku yeelatay waxaana hubaal ah dowladda ruushka in ay go'aansatay in dagaalkii xaragada ahaa ay joojiso ay ku sheegtay dagaalka koobnaa hadda waxaa muuqata dagaalka inuu noqday mid dhab ah oo ay muujinayso awooddeeda dowladda ruushka wixii ka dambeeyay markii ay ku guuleysteen Ukraine inay xadgudub ku sameeyaan diyaaradihii istiraatiijiga ahaa oo ay baabuur lagu dhex qariyay wadanka ruushka laga weeraray gooba ay ku sugan yihiin diyaaradihii istiraatiijiga ee bomka nuclearka qaadayay wixii ka dambeeyay ruushka waxa uu qaatay tallaabooyin una naxariis u gelin Ukraine waa gartay waaya markan aynu eegno dhanka Gaza militariga Israa'iil inkastoo dhimashada intaas ay ka badan tahay la filayo oo saxaafadan aan aad looga sheegin laakiin wararka dhanka Falastiiniinta laga soo warinayo ay leeyahay diyaarado fara badan oo helikobtarada dhaawac iyo meydka kala guraya dagaalku hadda waa sii adkaaday iyadoo wada hadalana ay socdaan maxay qabiirada arrintan ku macneeyeen maxamed hore ayaa khabiirada Israa'iil u sheegayeen dagaalkan Israa'iil ciidankeeda kaydka ah oo aan si fiican u tababarnayn oo aan agab fiican haysan inaynan wax guul ka keenin ciidamadii kale khibradda lahaana dagaalka mar hore ayay ka baxeen kadib markii ay dhowr goor faraha uga gubteen xirfadda iyo dagaalka ku dhufo ka dhaqaaqda ay isticmaalayaan Falastiiniyiinta hadda Falastiiniyiinta waxaa soo gashay dhiiranaan ka duwantii hore sawirada soo baxaya ayaa waxaa arkaysaa askar lugeynaysa oo taangiyada gadaal inta ka fuulaan bombooyin u dhigaya waxaad arkaysaa askar xayna oo wada socota oo afarta jiha dagaal laga soo gelinayo oo aanan loo kala joogsanayn macluumaadka soo baxay dhan waxay tilmaamayaan
iyo khabiirada Israa'iil siday hadal ku dhigayaan way iswaafaqayaan oo ah haddii dowladda Israa'iil ay bedeli weydo khidada iyo dagaalkan ay wado aan macnaha lahayn in laga yaabo in ciidanka Israa'iil uu jabo maadaama uu galay dagaalkii ugu dheeraa ebed taariikhda. barnaamij gaar ayaa waxaan ka sameynay 20,000 iyo dheeraad ka badan ayaa waxa leeyahay waa ismadax mareen oo waxa ay qabaan sas naxdin iyo waxa aan ku sheegno nafshid oo ah dhimirka cudurka gelaya oo qofka hurdo la'aanta baahida iyo naxdinta ay ku abuurto qaar badanna waxaa la sheegayaa in xataa ay dhib badan tahay in la daaweeyo ayagoo xanuunsanaya dagaalka lagu dhaxaya. waa gartay waayahay dabcan Netanyahu wuxuu leeyahay inaan Xamaas ka takhaluso maahane dagaalka joojin maayo. wasiiradiisa mayalka adagana wuxuu ku qancinayaa dagaalka 60 maalmood xitaa haddii xabad joojin la gaaro waa sii wadaynaa. marka sidee isku qabanaysaa arrintaasi in ciidankiisana waali laga sheegayo oo maanta ugu dambeysay askari uu isku dilay waqooyiga isla markaasna leeyahay askar fara badan baa isdilaysa dhaawac iyo dhimashadii ku kordhay isna uu leeyahay dagaalkan dib ugu laabanaya. maxaa arrintan lagu macnayn karaa? Israa'iil iyo Xamaas ma wada hadlaan wada hadallada dadban. Israa'iil bedelkeeda Mareykanka ayaa ugu jira Mareykanka ayaa u raadinaya in uu xoogaa tanaasulaad ah ka helo dhinaca Xamaas. Xamaasna uma muuqato inay tanaasulaad sameynayso ciidan jabay oo cadow ah oo aan naxariisi wax kala gelin. waxayna u badan tahay sida khabiirada hadalka u dhigayaan in ciidanka Israa'iil haddii ay ku sii nagaadaan dagaalkan ay noqon doonto inay jabayaan. Netanyahu iyo wasiiradiisa xag jirka hadalka iyo wada hadallada iyo waxa la xiriira uma dhaga doolaan guul darrada iyo mustaqbal xumada ku soo wajahanaya arkaan. waxa ayadana aan meesha ka maqnayn inay ogsoon yihiin Xamaas heerka ay ku sugan yihiin iyo waxa ay yihiin mana u muuqato inay wax tanaasulaad sameynayso. duqaynta ay wadaan waxa ay daba ordayaan markii ciidankooda uu wax iska celin waayay dadka rayidka meelaha isbitaalada ah meelaha ay dadka barakacayaasha ku gabanayaan iskuulada iyo waxa lamid ah. Falastiiniintu waxay gaareen heer ay cabsidii ka dhamaato kalsooni ay ku qabaan inay gacmahooda isaga reebi karaan cadow muddo dheer lagu dulhayay oo ay leeyihiin markan mar ay ka nugul yihiin lama arko mana ka harayn. waa tahay maxamed aad baad u mahadsan tahay. daawadayaashooda mahadsan yihiin inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa caawa barnaamijka. daawada si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyadan iyo macluumaadkan aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir. waana mahadsantihiin mar kale nabadgelyo. ku soo dhowow qaari online qurba joogta dadkayga u barashadii quraanka iyo qalinkii aqoonta oo online lagu qorsheeyo qadka telefishinka HBN. qodobada aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah militariga Israa'iil oo qirtay 3 askari oo lagu dilay marayka Gaza iyo in kale oo lagu dhaawacay iyadoo iska hormaadiya culusna ay ka socdaan dhanka waqooyiga iyo koonfurta jidda Gaza. cisbitaalada Israa'iil ayaa xaqiijiyay in dhaawacyo fara badan oo laga keenay marayka Gaza la soo dhoobay xarumaha caafimaadka. xoogagga iska caabinta Falastiiniyiinta ayaa dhankooda soo saaray warbixino kala duwan oo la xiriira howlgalladii ugu dambeeyay ee ka dhanka ah militariga Israa'iil. waxaana ka mid ah taangiyo la qararamsaday gaadiid kale oo la gubay iyo ciidamo toos loo beegsaday. xaaladda dagaalka ayaa weji cusub gashay. waxaan idiin haynaa wararkii ugu dambeeyay ee amuurtan. dhinaca kale Israa'iil ayaa sii wada duqaynta ilaa iyo 50 qof in ka badan ayaa la sheegayaa tan iyo saaka in lagu dilay duqaynta Israa'iil ay wado. Iiraan oo war cusub ka soo saartay inay xirisay in kale marin biyoodka muhiimka ah ee Hormuz. Israa'iil waxay qiratay inay duqaysay taangiyo ay leeyihiin ciidanka Suuriya oo ku sii jeeday gobolka Suwayda halkaasi oo la sheegayo iska hormaadiye ka dhacay inay ku dhinteen dad 10 qof ah. waxaana wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in xiisad culus ay ka jirto aaggaasi. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in Ukraine loo diri doono gantaalada difaaca hawada ee Patriot iyadoo caawana la filayo inuu ku dhawaaqo waxa lagu tilmaamay war weyn oo ka dhan ah Ruushka. wararkan iyo qodobo kale iyo falaqayntii iyo wixii warah ee degdeg ah ee soo kordha
intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka wararka caawa. soo gudbinta barnaamijkan waxaa gacan ka geysatay shirkadda xawaaladda ee Safari Remit oo ah shirkad xawaaladeed oo fadhigeedu yahay dalka UK. si aad u hesho faahfaahin dheeraada una adeegsato adeegga Safari Remit, booqo website-ka shirkadda www.safariremit.com. ku soo dhowow shirkadda dhismaha casriga ah ee Golden Country Apartments. daaxaadda waaftoo dibadaha maraysay hadda soo deg meeshii dalxiis ku ahaan lay qalbiguna ku degila daartaas ifayso dadku wada jeclaadeen mardocdaada ka carbuuno. shirkadda dhismaha guryaha ee Golden Country Apartments waxa ay Nairobi kugu diyaarisay dhismo casri ah oo hadda shaqada lagu wado, kaasoo ka kooban dhammaan adeegyada xaafad casri ah looga baahnaa. lacagta 24 bilood ayaad ku bixin kartaa haddii aad doonto. waa 2 qol, 3 qol iyo 4 qol iyo qolka shaqaalaha, waxaana uu ku yaalaa xaafadda South Sea, wadada Mohoho Avenue. kala xiriir ciwaanada iyo adreeska kale ee shaashada kaaga muuqda. maxamed cabdi oo wararkan isku soo duway ayaa qadka ku jira. maxamed, inoogu bilow wararka kuwooda ugu waaweyn. bogagga internetka laga leeyahay Israa'iil ayaa ku waramaya in 3 askari oo Israa'iil la dilay, qaar kalena la dhaawacay kadib markii taangiga markaabaha loo yaqaan la beegsaday gantaal asagoo marayay gudaha marinka Gaza. ila kale oo Israa'iiliyiin ayaa sheegaya in tira askarta Israa'iil la dilay intii uu socday howlgal ammaan oo ka socday deegaanka Jabaaliya ee waqooyiga marinka Gaza. Israa'iilahaasi ayaana wax faahfaahin ka bixin qaabka dagaalku u dhacay. saacadihii ugu dambeeyay ayaa waxa la leeyahay deegaankaasi waxaa ka socda duqeyn xagga artilleriga oo Israa'iil ay wado iyo diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ayaa dul meeraya. taasina waxay calaamad u tahay in dagaalku ahaa mid qaraar. arrintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo weeraro ishuwan oo 3 lagu qaaday deegaanka Shujaaciya, Tufaax ee ka tirsan marinka Gaza iyo Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza, taasoo la sheegayo Israa'iil ay ku sheegaysa inay xaalad culus jirto. warbaahinta Israa'iil ayaa sidoo kale ku waramaysa askarigii maqnaa ee Israa'iiliga ahaa inta xaaladda culus lagu jiray ee bariga marinka Gaza ku maqnaa in la helay, waxaana la isku dayay baa leeyahay askarigaasi inay Falastiiniyiintu afduubtaan sida wararka qaar ay sheegayaan. Israa'iil Qudus ayaa sheegaysa in dagaalyahanadooda ay burburiyeen qaar ka mid ah geedadka dagaalka ee Israa'iil kadib markay u kaashadeen waxyaabo qarxa iyo dagaal gaadma. kooxdan ayaa barta Telegramka ku qortay in ciidamada Israa'iil ay waxyeello soo gaartay, gaar ahaan markii weerar gaadma lagu qaaday ayagoo marayay deegaanka Abasan al-Kabira ee bariga Khan Yunis. dadka wax badbaadiya iyo kooxaha wax badbaadiya Israa'iil ayaa isticmaalayay helikobtaro ay ku soo gurayaan dadka dhaawacay kuwa dhintay sida hadalka lagu sheegay. wararka ka soo baxaya ila ay leeyihiin Falastiiniyiinta ayaa sheegaya in 51 qof oo Falastiiniyiin lagu dilay weerar kala duwan oo Israa'iil ku qaaday deegaano kala duwan oo marinka Gaza kamid ah. isbitaaladana loo qaaday, waxaana kamid ah leeyahay 20 lagu dilay magaalada Gaza iyo waqooyiga. Iiraan ayaa faahfaahin ka bixisay inkastoo ay go'aan rasmi ah weli qaadan inay xirayso biyaha marinka Hormuz iyo in kale marka laga gudbo in xiisadda ay sii kordhayso u dhaxaysa Iiraan iyo Mareykanka iyo Israa'iil. xubno ka tirsan baarlamaanka oo ay ka mid yihiin guddiga amniga qaranka ayaa xaqiijiyay halka ay taageerayaan in laga baarandego tilaabadaasi lagu xirayo biyo mareenka. haddana xiritaankiisa weli lama ansixin, waxaana ansixin doonaa golaha amniga qaranka ee waddanka Iiraan. telefishinka Iiraan ayaa soo xiganaya xildhibaano sheegaya in khiyaaraadka ay weli yihiin kuwa miiska saaran, hase haatee wax tilaabo oo la qaaday ma jiraan. warbaahinta maxalliga Iiraan ayaa sheegaysa in biyo mareenka uu yahay goob muhiim ah oo ay maraan saliidda caalamka u kala gooshta, welina uu furan yahay, maraakiibtuna ay marayaan oo wax carqalada aysan jirin. waxyaabaha la isla dhex maraya ayaa waxaa ka mid ah in qaraar baarlamaanka laga yaabo inay gudbiyaan ay ku baaqayaan in la xiro biyo xireenkaasi kadib markii
wadamada reer galbeedku ay weerar ku qaadeen goobaha muhiimka ee militariga wadanka Iiraan. hase ahaatee lafagurayaasha ayaa tilmaamay Iiraan ayaa laga yaabaa inay hanjabadan u isticmaasho aalad istiraatiiji ah halkii ay isu diyaarin lahayd baa leeyahay in ay qaado tillaabooyin militari oo xoog leh. golaha amniga qaranka ayaa la sheegay in aynan weli go'aan ka qaadan waxa ay ka yeelayaan dadka arrimahan la socda ayaa ka digaya xiritaanka inuu dhalin doono qalalaase ganacsiga caalamka soo wajaha. wararka caalamkana waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ansixiyey in gantaalada difaaca cirka ee Patriotka loo yaqaan in Ukraine loo diro, taasoo isbedel ku keenaysa Mareykanka siyaasadiisii. Tallaabadan ayaa waxay kusoo beegmaysaa iyadoo madaxweynaha Mareykanka uu ka dalbay xulafadiisa waa sida hadalka loo dhigay ee Yurub in ay kharash ka bixiyaan, iyadoo Jarmalka lagu waramayo inuu diyaar u yahay in uu maalgeliyo isla markaasna uu qayb weyn ka qaato in nidaamkaas difaaca la geeyo Ukraine. ergeyga gaarka ee Trump u qaabilsan Ukraine Keith Kellogg ayaa la kulmay madaxweynaha wadanka Ukraine Zelensky, waxayna ka wada xaajoodeen sidii loo ballaarin lahaa sidii ay wax soo saar xagga hubka ay isaga kaashan lahaayeen Ukraine iyo wadamada Mareykanka iyo reer galbeedka si loo xoojiyo nidaamka difaaca cirka ee Ukraine. hadalladan ayaa waxa ay muujinayaan xiisadda sii kacaysa iyadoo Trumpna uu si furan u cambaareynayo wadanka Ruushka sida uu dadalgeliyay weerarada ka dhanka Ukraine. ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in ay duqeeyeen taangiyo kusoo xadgudbay gobolka Suwayda kadib markii ciidanka Syria ay isku dayeen in ay joojiyaan dagaallo dhexmariyay maleeshiyad maxalli ah iyo qabaa'il. ciidanka Israa'iil ayaa bayaan ku sheegay inay bartilmaameedsadeen taangiyada wadanka Suuriya ee soo galay inta u dhaxaysa tuulooyinka Saajin iyo Al-Sami ee ku taala gobolka Suwayda oo ku yaala koonfurta wadanka Suuriya oo ay yihiin deegaanada ay ku badan yihiin qowmiyadda Druuska. Madaxda militariga Israa'iil ayaa soo xiganaya saraakiil Israa'iil oo sheegaya in bartilmaameedka laga dhigtay taangiyada Suwayda mariyay ay tahay in laga soo horjeesto weerarada lagu qaadayo dadka loo yaqaan Druuska. ilaa xagga amniga ayaa u sheegay janaalka 12aad ee Israa'iil in taangiyada Syria ay ka soo gudbeen khad hore loogu tilmaamay Israa'iil ay ku sheegtay oo gudaha Syria ku yaala inuu yahay lagama gudbaan. sababahaas ayaana keenay in la duqeeyo taangiyada wadanka Suuriya. waa hagaag maxamed, waa mahadsan tahay. daawadayaashuna ay mahadsan yihiin. mar kale ayaan soo dhoweynaynaa. waxaan u gudbaynaa daawadayaal wararka degdega wixii soo kordha iyo falaqayntii, laakiin aynu ku hakanno qadar xayeysiina. xarunta caafimaadka ee Private Walk in Clinic waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaaraynaysaa